داوديال من كستو أتوسكنتين ساعات كستو إذا انتهى وقت كستو إذا انتهى رمضان الكريم إلهي بقى وحط له ونسوق على بشر رمضان هرانتي ما أنت ومالك جمعة وحنقصوا قلنا هاي مقالة تنكر كيسا مساجد هو يميت كبدا والله يقانو عمر بن الخطاب أما إن إدريس سيادرتيت وحرمنا إن إدريس يقول بنا جمعة كستا دروس أمام محاضروين كوب حياة مقرن يسافك أقوله waxaan ka codsanaynaa haddii ay tahay marka ugu horeyso aad soo booqato fadlan inaad saartid subscribe channelka Tawciya Media iyo channelka kale asagana Sakhawdin channel waxaad mar kastaba idin diyaarnahay inaan idin soo gudbino barnaamijyo kala duwan oo diini ah oo xiiso geliya fadlan haleeloobin haddii aad ugu cusubtahay inaad casaanka ugu tishid cadaan lana wadaag barnaamijyada diiniga ah oo aad ka heli doontaan توعية ميديا يجعل كسخاودين ملك السؤال جبتين وحلنا هاي رمضان كريم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذي المن والتوفيق والإنعام شرع لعباده شهر رمضان للصيام والقيام مرة واحدة كل عام وجعل أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام ومطهرا للنفوس من الذنوب والآثام والصلاة والسلام على من اختاره الله لبيان الأحكام واصطفاه لتبليغ شرعه للأنام فكان خير من قام وصام ووفى واستقام وعلى آله الأصفياء وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان على الدوام ولا ليال وحين إن شاء الله تعالى أين ما أنت وحير كتل ما مدونا ما أنت أين توغنا كودي بشي رمضان كنا فرح سنة حين إله سبحانه وتعالى إن سوغار سيي أين لنا حي مرحبا بك يا رمضان رمضان يسودوو ما أنت وأين سود وين رمضان وحين وحير كتل ما مدونا إن شاء الله تعالى بل بشهر رمضاني وحيابها ديرات كأي جار كأي لا بحي يفضل يقفك مركو صومه وكفى إدايه بشهر رمضان إلى لباتني يقضب وميزات كي خصائص أي لا بحي أم بوحيابها جار كلا لا بحي بشهر رمضان كصابصا إيا فضل جيدين ولا يركت المام دونا إن شاء الله تعالى قضبك كوات بشهر رمضاني وتيرك أفراد تيرك إسلامك شن تير بوكو تاغيهي تير كمدو تيرك أفراد أيا صومك بشهر رمضان لصوم سدو رسولك صلى الله عليه وسلم حديث كلمة الشيخ بخاري مسلم ورينيان وكتل مامي بني الإسلام على 5 إسلام كإن شنتير لغو تاغي وحو رسولك الشيغي وصوم رمضان وحاكم دا تيرركا بشهر رمضان ولا صومه ولا ليال قضب كاللباد ديرات كاللتاي وحوي بشن صوم كيدا إلا صومه وفرض عين وقفك مقيمك دجن مكلفك عقلك يقفك قانجارك أود الصوم كعذر دارنا اللهين مقبولة قفك سوى فرض عين بكتهي إنو صوم بشهر رمضان وانا وحيابه جارك لتهي صومك بشهر رمضان إنه يهي الصوم الواجب أما صومك واجبك إلهي بقرآن كيس كيري فمن شهد منكم الشهر فليصم قفك بشن قوبتوغ النقضة حاضرة حصوم بإلهي سبحانه وتعالى ولا ليال
bishani waxyaabahay dheeraadka la tahay waxaa ka mid ah amba ay ku soocan tahay ilaahay baa qur'aankiisa soo dejiyey bishan dastuuru haadihi اlumma dastuurka ummaddan ee noloshooda hagaaya ee ka saaraya mugdiyaasha una saaraya iftiinka ayuu ilaahay u doortay inuu bishan soo dejiyo shahru ramadaan aladii unzila fiihi اlqur'aan bisha ramadaan ilaahay waxau yidhi waa bishii uu ilaahay qur'aanka soo dejiyey qodobka afraad ee ay gaarka la tahay bishani waxa weeye bishan albaabada jannada ayaa la furaa iridaha jannada ayaa la ballaqaayo la furaa iridaha sideedda ah ee jannada ayaa la ballaqaayo la furaa buu xadiidku tilmaamaya idaa dakhala shahru ramadaan futixat abwaabu اljanna albaabada jannada la furaa buu rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam oo acmaasha saalixaadka ah ee qofka jannada geynaya ayaa bishan aad iyo aada u badan walaalayaal bishan qodobka shanaad ee gaarka la tahay waxa weeye in albaabadii naarta la xidhaayo siduu rasuulku inoo tilmaamay sala allahu calayhi wasalam watuglaqu abwaabu nnaar albaabada naartana waa la xidhaa buu rasuulku tilmaamaya wagulliqat abwaabu nnaar albaabada jannadana markay bishu timaado waa la xidhaa qodobka lixaad ee ay gaarka la tahay bishani waxaa la tigtigaa oo la silsiladeeyaa oo la karantimeeyaa shayaadiinta kuwoodii madaxa adkaa siduu rasuulku xadiiskaa saxiixa ee aynu qeyb ka akhrinay ku tilmaamayo wasufidat الshayaaطiin shayaadiintiina waa la tigtigaa oo waa la xidhaa buu rasuulku leeyahay salى اllahu عalayhi wasalam taana raadkeedii iyo midhaheedii waxaynu ka arkaynaa bisha ramadaani markay soo gasho goobihii cibaadada ayaad arkaysaa dadkii oo soo buuxinaya waayo dad badan shaydaanka ayaa meel ku xidhxidhay oo markii shaydaankii laga qabtay oo la xidhay ayay goobihii cibaadada soo buuxiyeen walaalayaal bishani waxyaabahay gaarka la tahay waxaa ka mid ah oo qodobka toddobaad ah ilaahay subxaanahu wa tacaala naaraha ayuu dadka uu ka xoreeyaa dadka muslimiinta ee saa'imiinta ah naaraha ayuu ka xoreeyaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa shahru lcitq waa bishii naaraha layska xoreynayey xadiidka xasanka ibnu maaja warinaayo rasuulku wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam ilaahay waxaa u sugnaaday addoommo uu naaraha ka xoreynaayo mar kaste oo la afuraayo taasina waxay dhacaysaa habeen kaste oo ay ramadaan soo galayso ilaahay subxaanahu wa tacaala amba habeen kastoo habeenada ramadaanta ka mid ah waxaa ilaahay uu leeyahay addoommo uu naarihiisa ka xoreynaayo ilaahay baynu weydiisanayna inuu naaraha naga xoreeyo walaalayaal qodobka sideedaad ay bishani gaarka la tahay waxa weeye waa bishii dembi dhaafka ilaahay dunuubta ayuu ku dhaafaa bisha ramadaan qofka ilaahay u sooma isagoo rumaysan ixtisaab iyo ajar dalabna u sooma ilaahay ajar isagoo kaga raadinaya rasuulku wuxuu leeyahay salى اllahu عalayhi wasalam gufira lahu maa taqadama min denbi waxaa loo dhaafayaa wixii dembi hore ee uu ka dhacay ayaa loo dhaafayaa rasuulku leeyahay salى اllahu عalayhi wasalam xadiidkana bukhaari iyo muslim ayaa wariyey waxaa kale rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam xadiiska saxiixa uu ku tilmaamay salaadaha shanta ah jimco ilaa jimco inta laga gaarhaayo ramadaan ilaa ramadaanta kale inta laga gaarhaayo waxay dembi dhaaf u tahay wixii dhexdooda dhacay ee dembiga ah gaar ahaan dunuubta yaryar ida jtunibat اlkabaa'ir haddii dunuubtii waaweyn laga fogaado ayuu rasuulku ku tilmaamaya salى اllahu عalayhi wasalam idan hada shahr bishani walaalayaal waa bishii makfirada iyo dembi dhaafka bishani waxyaabahay gaarka la tahay oo qodobka sagaalaadii waxa weeye in bishan
la sunneeyo salaada taraawiixda ama salaatu lqiyaam oo sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam ka mid ah rasuulkuna uu dhiirigeliye sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam qofka istaaga bisha ramadaan oo cibaado iyo salaatuleyl u istaaga isagoo ilaahay rumaysan ajarna ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga raadinaya ilaahay waxa uu dhaafaa dunuubtiisii buu u dhaafaa hore ayuu rasuulku tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam qodobka tobnaad ay bishani gaarka la tahay walaalayaal waxa weeye in ay ku jirto bishan acdamu leyla habeenada ka u weyn ee ugu fadliga badan ayaa bishan ku jira waa habeenka laylatulqadriga waa habeen ka khayr badan 1,000 bilood oo camalka habeenka la sameeyaa uu ka fadli badan yahay 1,000 bilood camalkii la samayn lahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamayaa fiihi laylatun khayrun min 1000 shahr waxaa bishan ku jira habeen ka fadli badan 1,000 bilood oo u dhiganta 83 sannadood iyo dheeraad rasuulku mar kale sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamayaa qofka habeenka laylatulqadriga ilaahay u istaaga isagoo u cibaadaysanaya aymaan iyo ajar dheer dalabna la yimaada ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigiisii hore ayuu dhaafayaa walaalayaal waxyaabaha bishani dheeraadka la ahaa fi taariikhi alislaami marka la akhriyo guulihii waaweynaa ee islaamka la gaadhay waxay amba ghazawaadkii iyo duulimaadkii guulaha laga soo hooyey haalibkoodiiyo intooda u badnaa waxay dhaceen bishii ramadaan oo waxaa ka mida ghaswatu lbadri alkubraa waa dagaalkii ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqa iyo baatilka uu ku kala soocay ee ghaswatu beder waxa uu dhacay sanadkii 2 ee hijriga maka markii la furtay ee ay noqotay daar alislaam waxay ahayd bishii sanadkii 8aad bil ramadaanna dagaalkaasi uu dhacay markii ay tataarku ku soo duuleen ee ay ku soo duuleen tataarku ay ku soo duuleen muslimiinta waa ciidankii barigaa ka soo bilaabay ee khilaafa alislaamiya riday dagaalka lagaga guulaystay caynuljaaluud waxa uu dhacay waa bil ramadaan ayuu dhacay sanadkii markuu ahaa 658 hijriga waxyaabaha dagaaladii muslimiintu guulaysteen bishan dhacay waxaa ka mid ahaa waa dagaalkii xitiin la oran jiray ee lagu xoreeyey baytulmaqdis ee kiristanka oo haystay 9 sannadood lagaga xoreeyey ee salaaxuddiin alayuubi uu hogaaminayey dagaalkaasina bil ramadaan ayuu dhacay 584 hijriga idan hiya shahru lintisaar waa shahrigii guusha iyo guulaysiga walaalayaal waxaynu in yar raacin doonaa in sha allahu tacaala haddaba maadaamaynu garannay waxaasoo dheeraaday bishani leedahay bal fadliga bishan qofka sooma uu helaayo baynu wax yar ku dari doonaa iyo siduu dheeraadka u leeyahay waxyaabaha tilmaamaya fadliga dheeraadka uu leeyahay bishani waxaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala soomka si gaara ayuu naftiisa ugu nisbeeyey acmaashii kaluu gaar kala noqday ilaahay subxaanahu wa tacaala sida xadiid alqudsiga uu ilaahay ku tilmaamayo qaala allahu caza wajal kula camal ibni aadam lah ila asoom camal kastoo ibni aadamku sameeyo isagaa iska leh ila asoom soomka mooyaane anigaa ka abaalinayo oo iska leh buu ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala waana sir ilaahay iyo addoonkiisa u dhaxaysa oo ikhlaaska ayaa acmaq ah bay culimmadu leeyihiin macnaha ikhlaaskaas sii xoogan iyo qofku lama ogaan karo inuu jabiyey iyo inuu sooman yahay waa sir ilaahay iyo isaga ka dhaxaysa waxaa xadiidka sii tilmaamaya yadacu shahwatahu wa طacaamahu liajli shahwadiisii iyo cuntadiisii aniga dartay ayuu uga tegey walaalayaal waxyaabahay dheeraadka la tahay soomka bishan la soomaa waxaa ka mid ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala ajarkiisa u labalaabo in uu isaga uun uu garanayo
acmaasha kale buu rasuulku leeyahay sala allahu calayhi wasalam qofku marka uu sameeyo waa loo labalaabaa xasanad iyo wanaagga qofku marka uu sameeyo camal wanaagsan 10 jibaar baa loogu dhuftaayo 10 jeer baa looba labalaabaa ilaa 700 jeer ilaa adcaafin kaiira ilaa in badan oo kasii badan baa loo labalaabaa ila soomka mooyaane ilaahay waxau leeyahay soomka anigaa iska leh aniga ayuun baana ka abaalinaya abaalmarin aad aan xad lahayn ayuu soomku leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka abaalinayo mar kale culimmadu sirta ku jirta halkaa markay sii fasirayeen waxay tilmaameen ilaahay qur'aankiisa waxa uu ku tilmaamay innamaa yuwaffa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab saabiriinta iyo kuwa ilaahay u sabra ilaahay ajarkooda waxa uu siinayaa isagoo loo xisaabin ajar aad u badan oo tiro lahayn buu ilaahay siinayaa soomku sir baa halkaa ku jirto wuxuu koobsaday dhammaan noocyada kala duwan ee sabirka oo qofku gaajadiibuu ku sabrayaa oo taacadii iyo cibaadaadkii salaadii iyo soomkii iyo sadaqadiibuu ku sabraya qiyaamkii sidoo kale waxa uu ka sabrayaa macaasidii iyo waxyaabihii ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cadhaysiinayey walaalayaal soomka waxyaabuhu dheeraadka la leeyahay waxaa ka mid ah isbeddelka qofka afkiisa ku dhaca luunka ku dhigaya wuxuu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam in ay ilaahay agtiisa ka udgoon tahay miskiga cadarka loo yaqaano inay ka udgoon tahay maadaama ilaahay taacadiisa isla bedelshay oo cuntadii markay calooshii badnaatay afkii isla bedelay isbedelkaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa min riixi lmiski iyo miskiga iyo cadarka miskiga loo yaqaano ayaa uu ka udgoon yahay soomka iyo qofka soomani walaalayaal waxa uu leeyahay laba farxadood siduu rasuulku inoo tilmaamay sala allahu calayhi wasalam farxadi waa marka uu cibaadadii soo dhammaystay ee uu afuraayo waxa uu ku farxayaa cibaadadii uu soo qaatay iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay uu baneeyey cuntadii iyo shahawaadkii inuu gudanayo uu samaynayo iyo markay cibaadadii bishii ramadaan u dhammaato ee uu ciidayo intaba waa ku farxayaa sidoo kale farxadda weynina waxay u imanaysaa cinda liqaa'i rabbihi markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala la kulmaayo walaalayaal faa'iidooyinka soomka bisha ramadaan la soomayo waxaa ka mid ah iyo fadliga iyo dheeraadka uu leeyahay soomku wuxuu u ergeeyaa qofkii saa'imka ahaa ee soomanaa waxa uu leeyahy yaa rabbi waxaan u diiday dacaamkiisii iyo cuntadiisii iyo shahwadiisii ee ilaahayow iga erga aqbal ilaahayna markaasuu ka erga aqbalayaa oo jannada la gelinayaa walaalayaal qofka soomani dheeraadku leeyahay waxaa ka mid ah inay ducadiisu ay tahay mid mustajaabo ah oo la aqbalaayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamayaa wa anna likulli muslimin fii kulli yowmin walayla dacwatun mustajaaba qof kastoo muslim ah oo sooman habeen wal iyo maalin kastaba waxa uu leeyahay duco aan la soo celinayno ilaahay uu aqbalaayo xadiidkuna waa xadiis saxiixa walaalayaal soomka faa'iidadiisa waxaa ka mid ah iyo fadligiisa in ilaahay subxaanahu wa tacaala naarta uu kaa fogaynayo rasuulku wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam qofka maalin ilaahay dartee u sooma ilaahay wejigiisa 70 khariifan in ka badan 70 gu amba 70 sannadood ayuu ilaahay naarta uu ka fogaynayaa faa'iidooyinka iyo fadliga uu soomku leeyahay waxaa ka mid ah waxaa jira albaab iyaga saa'imiintun u gaar ah oo la yidhaahdo alrayaan hadday saa'imiintu ka galaana cid kale ka geli mayso iyagu uunbuu u gaar yahay albaabka baab albaabada jannada ka mid ah ayaa u gaara dadka sooman sidaa daraaddeed ayaa iyagu un ka gelayaan buu rasuulku leeyahay sala allahu calayhi wasalam walaalayaal soo koobi kari mayno aad bay u badan tahay fadliga bisha ramadaan iyo soomkeeda oo faa'iidooyinka laga helayo waxaa ka mid ah inuu naftii uu baraayo sabirkii iyo dulqaadkii waayo cuntadii iyo uu arkaayo ayuu haddana ilaahay dartii uga tegayaa kadibna naftiisu la qabsi waa meesha ugu habboon
ee qofka hadduu in uun balwad lahaa iyo idmaan uu kaga tegi karaayo. waxa uu leeyahay faa'iido caafimaad oo cuntada badan inta u badan xanuunada u badani waxay ka yimaadaan cuntada badan ee aطacaam cala aطacaam caloosha cunto ku jirta cunto kale laga dabageynayo. soomku waa uu faaruqinayaa faa'iidooyin u badan dhakhaatiir badanna waxay qofka u qoraan inuu soomo waayo soomkaasi calooshiina dawo ayuu u yahay xataa dadkii subaga lahaa iyo dadkii simnada iyo